dib uma arko inaan dil geysto ama cilaaqad jinsi ah sameeyo haddii waxuun ay u faa'iideynayso Israa'iil. Sidaasi ayay tiri tan iyo intii ay ku dhawaaqday inay isaga baxday siyaasadda sanadii 2019 ilaa iyo had tanaasul kasta oo uu sameeyo hogaamiye Carbeed Israa'iil, gaar ahaan arrinta khusaysa heshiiska qarniga iyo kulamada sirta ah. Magaceedu waa uu ku weynaanayaa mid ka mid ah kuwa cadaadiska u sameeyay Israa'iil. Ma ahan inay mas'uul Israa'iil u ahayd, laakiin waa mid ka mid ah shaqaalaha sirdoonka Mossadka Israa'iil. Midda warbaahinta aysan joojin shakadeeda ku saabsan cilaaqadeeda jinsi ee hogaamiyaal Carbeed iyo sawirada kulamadaasi jinsiyadeed si loogu handado hogaamiyaashaasi. Ficilkii wasiiradii hore ee arrimaha dibadda Israa'iil Tzipi Livni intii ay la shaqeynaysay Mossadka Israa'iil ay ka soo gaartay darajooyinka ugu sareeya kuraasta Israa'iil, waxa uu u muuqanayaa inay tahay mid ka mid ah camiilada sirdoonka Mossadka Israa'iil ee ugu caansan. Waxay ahayd xubin firfircoon oo ka mid ah Mossadka Israa'iil markii loo wakiishay macluumaad ay ka soo ururiso hogaamiyaasha Carabta, iyadoo iska dhigaysa inay tahay shaqaale. Waxay ka shaqeynaysay guryaha ay kireystaan hogaamiyaasha Carabta. Wixii dhacay ayaa dhacay, kadibna waxaa la dusiyay macluumaadkii la dusin karay. Waatan Tzipi Livni, sirdoonada Yurub. Markii ay dhamaysay adeega ciidanka, waxay ku biirtay Mossadka Israa'iil iyadoo maslaxadiisa uga shaqeynaysay Yurub. Kadib ku biiritaanka sirdoonka Israa'iil, waxaa la sheegaa waxay ahayd halka ay u marto saaxiibad waqti hore ay lahayd oo 20 sano u shaqeynaysay sirdoonka Israa'iil, taasoo lagu magacaabo Miragal. Intii u dhaxaysay sanadii 1980 ilaa 1984, dhaqdhaqaaqa Mossadka kaasoo ay ku dabagalayeen hay'adda xoreynta Falastiin meelo kala duwan oo Yurub ah, waxay ka faa'iidaysatay luqadda Faransiiska oo ay si fiican ugu hadli jirtay si ay ugu shaqeyso dhinaca macluumaad ururinta mas'uuliyiinta Carabta ee Yurub, gaar ahaan intii ay ka shaqeynaysay magaalada Paris ee waddanka France bilowgii 80-meeyadii. Shaqadeeda waxay ku qaban jirtay iyadoo iska dhigaysa khaadimad, taasoo ka shaqeynaysa guryaha ay leeyihiin ama degan yihiin shakhsiyaadka la beegsanayo. Jaraa'idka reer galbeedka iyo kuwa Carabtu waxay sheegeen in shaqadeedu ay ahayd inay soo ururiso macluumaadka wixii u suurtagala iyo inay cilaaqad jinsi ah la samayso hogaamiyaasha iyo mas'uuliyiinta Carabta iyo sawiradooda. Faa'iidooyinka caadiladihii ay weli kama suulin Israa'iil, mirahooda hadda ayay guranayaan si ay ku waramayso warbixin warbaahinta caalamku ay qortay, gaar ahaan iyadoo loogu handadayo hogaamiyaasha si looga helo tanaasul ay sameeyaan. Tan iyo sanadii 2012, warbixintan ay baahisay xogo si hoose loogu soo dusiyay oo tilmaamayay in Tzipi Livni, wasiiradii hore ee arrimaha dibadda Israa'iil, ay cilaaqad jinsi ah la samaysay hogaamiyaal Carbeed. Laakiin markii ay ku dhawaaqday Livni inay isaga baxday hawsha siyaasadda, warbaahinta gaar ahaan jariirada The Times ayaa tabisay hadal ay jeedisay Livni kaasoo ahaa inaysan waxba u arkin dil inay geysato ama gogolaaf ay samayso haddii waxuun ay u faa'iideynayso Israa'iil. Inkastoo ictiraafkaasi fudud loogu ogaaday inay tahay mid wax badan og hadduu wax sheegtay, haddana waxay sheegtay inay Israa'iil wax kasta u horeyso. Waxaa jirtay fado uu soo saaray Xaqam Shahiir, taasoo loo yaqaan Arshifat. Waxay u banaynaysaa gabdhaha Israa'iiliinta in cilaaqad jinsi ay la samayn karaan cadowgooda muqaabilkooda iyagoo helaya macluumaad muhiim u ah Israa'iil. Sidaasi ayaa loola xiriiriyay waxaa loo yaqaan dabinkii malabka. Waa masdalax loogu yeero howlgallada gaarka ah ay fuliyeen haweenka ama kuwa u shaqeeya Israa'iil. Waxaa laga doonayaa qofka inuu ku dhawaado shakhsiga uu doono uu ka takhaluso. Waddo kasta ha loo maree xogo hoose oo la helayo kaas oo ku saabsan Livni iyo galkeeda Mossadka. Waxaa lagu ogaaday in Sholo Cohen ay tahay midda ugu weyn iyo tan ugu muhiimsan ee ay ku dayato. Waxay ahayd gabar ka tirsan Mossadka Israa'iil. Waxaa lagu bartay cilaaqaad jinsi ah inay la samayso madaxda Carabta, gaar ahaan Lubnaaniyiinta, waana waxa u suurtageliyay inay furato dukaan lagu iibiyo cabitaanka kulul mid ka mid ah wadooyinka Beirut ee waddanka Lubnaan ka hor inta aysan guri howlgallada la qoriyo ka furin isla wadadaasi si loo keeno mas'uuliyiinta iyo ka helidda macluumaadyada sirta ah. Haddaba Sholo Cohen waxay tahay tan ugu weyn ee ku dayato, isla markaana Jola dhaqdhaqaaqeedu waxa u badnaa intii u dhaxaysay 1950 ilaa 1960. Jaajuusidda waxay ku darsatay xatooyada bangiyada iyo tahriibinta hantida Yuhuudda Israa'iil. Haddaba ma garanaysaa shakhsi ka fiican Jola oo ay ku dayan lahayd Tzipi Livni, caamiladii Mossadka iyo wasiiradii hore arrimaha dibadda Israa'iil?